wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dhawaan heshiis la saxeexatay shirkad gaar loo leeyahay oo ka diiwaan gashan dalka Imaaraadka Carabta. Shirkadaasi oo lagu magacaabo SKA International. Heshiiskan waxaa gundhig looga dhigay in ujeedada ay labada dhinac heshiiskan u galayaan ay la xiriirto iyadoo amniga qaranka ay halis gelinayaan argagixiso, mucaarad, qabiil hubaysan iyo kooxo maleeshiyad ah. waxaa kaloo sabab looga dhigay sida ku qoran heshiiska in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haystaan caqabado ku saabsan xallinta degmooyinka la xoreeyay iyo gacan ku haynta wadooyinka waaweyn ee sahaydu marto, wadooyinkaas oo isku xira gobolada dalka. idaacadda VOA waxay haddaba heshay nuqul ka mid ah heshiiskaasi. heshiiskani waxa uu dhinac walba ku waajibinayaa dhowr waxyaabood. ugu horreyn, dhinaca SKA International waxa uu ku waajibinayaa qodobo ay ka mid yihiin inay bixiso dhammaan qalab ay ku jiraan gaadiid ku shaqaynaya xaalad wanaagsan iyo shaqaalaha saadka gaarsiinaya goobaha loogu talagalay, kuwaasi oo ku shaqaynaya baabuurta qaadaysa xamuulka iyo qalabka kale ee loo wado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee taakulaynaya kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa kaloo isla qodobkaasi ku jirta wax loogu yeeray ujeedooyin ganacsi oo aan heshiiskani faahfaahin dheeraada ka bixinin. sida ku cad heshiiska waxaa kaloo SKA International ay bixin doontaa shidaalka naaftada ah ee lagu shubayo mid kasta oo ka mida gaadiidka galbinaya sahaydan iyo gunooyinka iyo cuntada la siinayo ciidamada ilaalinaya. dhinaca kale heshiisku waxa uu ku waajibinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qodobo ay ka mid yihiin inay bixiyaan kaalmo toosa, taasi oo ka kooban ilaalada hubaysan ee amniga si loo taageero dhaqdhaqaaqa xamuulka iyo qalabka kale ee u socda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa AMISOM iyo xoogga kale ee taageera AMISOM, ujeedooyin ganacsi iyo goboleed iyo dawladaha federaalka ilaa gobolada. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay bixin doonaan ilaalada hubaysan ee gaadiidkan culus inta lagu guda jiro howlgalka iyadoon la eegayn duruufaha ama sababta dib u dhaca ilaa kolonyadu ay kaga soo laabanayso halkii ay ka baxday. waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa inay si muuqda uga hortagaan kuwa ay suurtagalka tahay inay soo weeraraan kolonyadaasi. waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa ilaalinta shaqaalaha SKA iyo macaamiisheeda iyo gaadiidka kolonyada si waafaqsan baa la yidhi xeerarka anshaxa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. saxeexa heshiiskan iyo faahfaahinta macluumaadka ku jirtaba waxaa VOA u xaqiijiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod. waxa weeye shirkadaas annaga waa run heshiiska waa la galnay. waxyaalaha annaga nooga muhiimsan oo ugu kalifaya inaan la galno waxa weeye horta annaga wax haba yaraatee dhaqaalaha oo nooga baxayaa ma jiraan. iyaga ayaa yiri lacagta waa raadsanaynaa wixii alaaliyo maaha annaga keliya AMISOM iyo muxuu ahaa wax alaaliyo wixii ku sarraysan xagga raashinka oo la siinayo ciidamada xoogga ayaan kusraadaas ka helaynaa. adinka qaybtaa ku leeyihiin oo muxuu ahaa SN hadda iyadoo ay geyso waa idii qaadaynaa. waxaana ku daraynaa shiikadaas kale oo aan lagu aan ka shaqaynayno. waa gad marka maxay idin qaban doonaan idinka si haddaan SN ku koobnaano marka hore? annaga waxay noo qabanayaan faa'iidooyin baa noogu jira. sax. marka u horeysa waxay leeyihiin waxaan furaynaa jidadka oo aan rabnaa inaan wadooyinka idinla furno. waxay yidhaahdeen ciidanka furahaya waxaan u samayn doonaa meelo ay degaan oo ku tababartaan, xagga hubkana waa ka caawinaynaa. marka labaadna waxa weeye jidka raashinkaan marsiinaynaa. adinka waxay noqonaysaa SN ayaa jidka marisay quudkii loo siday ama raashinkii loo siday SN baa gudbisay oo geysay meeshii la rabay. magac baa nagu jira annagana. maxaad marka uga baahan tihiin shirkad gaara mar haddii ciidankii kuwii wadada furayay ay yihiin kuwii maaragtay dhimanayay ee galbinayay sahaydan? haddayba ciidankii Soomaalida yihiin maxaad uga baahan tihiin shirkad ajnabiga? waxaad uga baahan tahay adiga annaga shidaalka ku baxayaan iyo gaadiidka qaadahaya iyo muxuu ahaa waxaasoo dhan annaga waxooga nooga baxaya waxba nooga bixi maayaan. marka adiga haddaan baabuur shidaalkiisii haysta oo muxuu ahaa yidhaahda wixii aad u baahantaan kugu raraya kuu geynaya ma diidaysaa mise waa qaadanaysaa? dadka taageersan heshiiskan waxay ku doodayaan inuu muhiim u yahay ciidanka Soomaaliya, gaar ahaan xilli ayay yidhaahdeen la isku dayayo in dawladda Maraykanka lagu qanciyo soo celinta saadkii cuntada iyo gargaarkii ay siin jirtay ciidamada dawladda Soomaaliya, kaasi oo la joojiyay dabayaaqadii sanadkii hore. laakiin sida ay ogaatay idaacadda VOA waxaa heshiiskan waajahaya laba ciladood. waa tan ugu horreysay waxaa la galay heshiiskan iyadoon si waafi ah loogala tashanin saraakiisha sarsare ee ciidanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ay sida tooska u khusayso hawsha saadka.
waxaa la ii sheegay in qaar ka mida saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ay ka soo hor jeesteen inkastoo haddana aysan awooddoodu gaarsiisnayn inay ka hortagaan oo ay wax ka qabtaan taliyaha saadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Maxamed Maxamuud Xuseen Generaal Garabay weli su'aasha noocaas taliyana shirkadna kulamo hadlin oo ima soo bandhigin welina la igama weydiin aniga in la yiraahdo see xalka yahay shirkadda hadda aad sheegaysana aniga tala ahaan xafiis ahaan isuma anaa iman wax agreementkeena kama wada hadal laakiin waxaan aaminsanahay in ay arrimahaas hadday jiraan ay kala hadleen taliyaha aniga iga madaxda ah marka waxaan aad iyo aad heli lahayd jawaabaha kugu habboon ama kugu filan inaad hesho taliyaha ayaan aad u jeclaan lahay fikir ahaan aniga haddii wax la iga weydiiyo waa habboonaa lahayd inaan jawaabaheeda haddeer aan kuu sheego laakiin wax su-aaloo la iga weydiiyey in ay arrintaas igu soo fool leedahay ama aan arrintaas aniga la iga rabo talo weli ima soo gaarin ma garat waa gartay baahideedu yay ka timid arrintu baahideeda inay ka timid laga yaabaa meel labada dhinacay tahay eedana ma ogi laakiin waxaan aaminsanahay baahideedu waxay tahay meesha ay ka timid ciday ku soo martaa ku habboonaa lahayd inay jawaabaha noocaas adiga ay ku siisaa saaxiibkay marka waa suuragal inay shirkadani qandaraaska la timid soo qoratay kabacdina saraakiisha Soomaalida oo la timid oo tiri hawshanaan qandaraaskanaan rabnaa iyadoon dantii kale ciidanka la fiirin kulley aniga baahidooda ma tegin oo aniga requestigaygu kor inta u tegay jawaabaheedu taama noqon marka haddii iyagu ay noo gartay inay naga caawiyaan dhinaca taakulaynta waxaan filayaa inay la wadaageen taliyahayga marka taliyahayga ayaa ku habboonaa lahaa inaad su-aasha inta badan wax ka weydiiso caqabadaha kale ee heshiiskan haysta ayaa ah in la galay iyadoo aanu ansixinin xafiiska iibka iyo qandaraasyada oo ay tahay sharci ahaan in la mariyo sida uu xeer ku dejiyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya xafiiska iibka iyo qandaraaska waxa uu hoos yimaadaa wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya wasiirkeeduna waa Cabdiraxmaan Ducaale Bayle arrinta anigu kama warhayo waa wax igu cusub leena arrinta cuntada ciidamada qola qandaraas ku haysata qola hore qandaraas ku haysato laga buriyayna way jirtay muxuu ahaa cabinetka wasiiradu waa laga wada hadlay waxaana la isla gaaray qalab dib loogu karaa ya wuxuu noqon karaa qalab wuxuu noqon karaa cunto wuxuu noqon karaa shidaal wax kasta u baahan yihiin ayuu kulley wax loo baahan yahay waxyaalaha waaweyn caynkaas oo kale ah de waa in la soo mariyaa iibka qaranka in la soo mariyo weeye anigu de iibka qaranku waxa weeye waxyaalaha noocaas oo kale ah meelo waaweyn khuseynaya ciidamada iyo waxa waaweyn lacagta badan waana lacaga badan weeyaan cuntada waxa ku baxa ciidamada saadka iyo cuntadoodii iyo arrimahoodii iyo iidaankoodii iyo shidaalkoodii waa lacaga fara badan baa ku baxa ya waa gar oo aan ka yarin 2 milyan bishii waa gar ayaa ku baxa waa gar marka waxa noocaas oo kale in iibka qaranka la soo mariyo ayaa loo baahan yahay marka wixii qaranka soo mariyo kala kuma dhici karto si kale haddaan iibka qaranka la soo mariyo waa sharci null and void weeyaan ana ku sheegay null and void yaa ku sameyn kara marka null and void ra'iisul wasaaraha madaxweynaha maadiga maya wana ku sameynaa dib baan u eegaynaa waa arkaynaa anigu inay jirto arrintaas u malayn maayo laakiin hadday jirto waa gad waa warigu cusub waa dib baan u eegaynaa waxaan rabaa waxyaalaan ka dadaalaynaaba taasa waa gar intaad golaha wasiirada joogtay ma la soo hordhigay imaka igu horreys maqalkaas ay tahay marka kol haddaan anigu maqalla uma malayna dad kaloo fara badan inay maqlaan ama in iibka qaranka la geliyo ma lama gelin iibka qaranku waxaan u hoos yimaadaa wasaaradayda ayuu hoos yimaadaa nimanka iibka qaranka u sarreeya waa wasiiro xagga sare ugu sarreeya aniga iyo wasiirka cadaaladda iyo wasiirka planninga iyo baa ka mid ah marka maanaan arag arrinta iyada khubarada sida dhow u daristay heshiiskan waxay sheegayaan in shirkadani aysan bixinayn shidaalka iyo cuntada iyo qalabka u socda ciidanka Soomaaliya waxayse ka qaadaysaa bakhaarada ciidanka xoogga dalka iyada oo gaarsiinaysa saldhigyada iyo furimaha sida ay sheegeen khubaradaasi dadka kale ee dhaliilaya heshiiskan waxa ay leeyihiin ma cadda halka ay shirkadani ka helayso kharashaadkeeda waxayna ka cabsi qabaan in looga jaro deeqda loogu talagalay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasi oo ay yidhaahdeen dhabarjab ayay ku noqon kartaa dhaqaalaha yar ee soo gaara ciidankaasi khubar kale oo dhinaca ciidanka waxay leeyihiin luqadda uu ku qoran yahay heshiiskani ma cadda waxayna keeni kartaa in shirkadani ay si dhib yar u hesho qandaraasyo kale iyo in ujeedooyin aan ahayn kuwa tashiilaad ay ku fushato waxayna si gaara farta ugu fiiqayaan qodobka odhanaya ujeedooyin ganacsi oo aanu tafaasiil ka bixinayn heshiiskani
ma shirkaddan SK International oo ah shirkad gaar loo leeyahay ayaa ciidanka xoogga dalka u adeegsan doonta ilaalinta agabkeeda ganacsi mise ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa leh ujeedooyin ganacsi? Generaal Maxamed Nuur Galaal waxa uu ka mid ahaan jiray saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, haatanna waxa uu ka faaloodaa arrimaha militariga. wax faa'iido ah leedahay male inay horay soo kordhida moogiye iyo bureaucracy aan loo baahnayn inay soo kordhiso moogiye iyo waxyaalo kale ku hoos qarsan oo maaragtay xataa waxa private ka business ka ay wadato in adigu escort garaysan waxaasoo dhan markii la isku soo xooriyay wax faa'iido ah leedahay male. waa gartay madaxda aan la hadalay oo taliya ciidan ku jira iyagu waxay ku doodayaan arrintan inay tahay arrin ciidanku u baahan yihiin iyaga wax lacag oo uga baxaysana aysan jirin. waxay leeyihiin shidaalkay noo qaadi, waxay leeyihiin qalabkay noo qaadi, waxay leeyihiin wax alla wax kastoo u baahano waxaan ku jirnaa xilli ciidanka awoodiisa la dhisayo, jidadka la furayo, gobolada la gaadhayo, la rabo ciidanka iyo AMISOM iyo ciidamada kale taageeraya inay isku socdaan. maxay kula tahay ma tahay shirkadani tii hawshaa wada fulin lahayd, tasiilaadka ciidankana gaarsiin lahayd meel walba? hadda maya shirkadu hub ma wadato, hubna ma keenayso. wadooyinka waxay u xiran yihiin dad oo hubaysan ayay u xiran yihiin, ma garanaysaa? marka nin gacno maran oo faralaalaada haddaan awood u leeyahay haddaba inaan inta wax iskortaareeyaan wada furayo maan haddaba furto oo aado. marka haddaan awooddaas aan hadda lahayn iyaduna ayan keenayn maxaan ku iskortaareeya seen ku iskortaareynaya? waagar muxuu ku habboonaan lahaa heshiiskan inuu noqdo adiga fikradaada? muxuu ku qomanaan lahaa in qaabkee loo dhigo? maya hadday shirkadu tahay shirkad bakaarka wax soo gelinaysa ama Maraykan ha ka keento ama Carab ha ka keento ama meel kale ha ka keento ayadoo bakaarka soo gelinaysa hadday ahaan lahayd okay. hadday ahaan lahayd shirkad hubaysan oo wadooyinka furanaysa sida Black Hawk waxaan leeyahay Black Water iyo wax la dhahay ma aqaane oo hubaysan oo qasab ku geynaysa wadada furanaysa waxa taasuna macna on boysa ayay samayn lahayd. laakiin hadda tan maba fahamsan wax faa'iido ay leedahay ma muuqato. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod waxa uu ii sheegay inuu isagu ku kalsoon yahay in shirkadani aysan ka leexan doonin ujeedooyinka heshiiska. ma laga yaabaa inay dana kale oo ganacsi oo ay shirkadu leedahay inay ku fushato ciidanka iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed? waad ogtahay SKA hawlo kala duwanna wadanka way ka soo qaban jirtay, kuwa kalena way ka haysaasaan maqlay. marka arrimaheeda kale ee private ee ganacsiga ila waa shirkad gaar loo leeyahay inay ku fushato iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed. ma laga yaabaa taas oo suurtagal ma mar haddii ciidankii ay fulinayaan? lagama yaabo, suuragal maaha. saraakiisha wax fulinaysa anagaa le, ciidanka wax fulinaya anagaa le. muxuu ahaa goobaha laga qaadayo raashinka meesha meel xeray ciidan baa iyo ku dejinayaan raashinka ma ahana baqaaro ku dejinayaan. marka ciidankii waa ganacsi ciidanka ka dhaqaaqsanaya ma ganacsi bowgeynayaan ninka hogaaminaya iyo ninka wada iyo qoriga iyo baabuurka iyo wiilka iyo sarkaalka intaba waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. waa madaxda dawladdu ma wada saxeexday heshiiskan? adiga wasiirka gaashaandhigga, ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha? intaan ka ogahay wasiirka gaashaandhigga iyo aniga madaxda shirkadda SKA International oo aan la xiriiray waxa ay diideen inay waraysi ka bixiyaan heshiiskan. madaxa shirkadaasi ee Muqdisho Stephen James oo aan khadka telefoonka kula hadlay waxa uu ii sheegay inaanu idan u haysanin inuu waraysi bixiyo. At the end of the day, sir, I've got no authority to speak to you and I have to cut this conversation short. isku soo wada duub oo wax ogolaanshaa uma haysto inaan kula hadlo. sheekadan intaas baan ku joojinaynaa. kulama sii hadli karo. waadna mahadsan tahay. I will not talk to you now, sir. Thank you very much. waxaan sidoo kale la hadlay xafiiska weyn ee shirkadda SKA International ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, waxayna iyagu dib igu soo xawileen xafiiskooda Muqdisho. toddobaadyadii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu u badnaa wasaaradda gaashaandhigga, halkaasi oo uu ka waday dib u habayn ku saabsan hoggaanka ciidanka. waxa isweydiin u baahan madaxweynuhu ma og yahay heshiiskan? haddii uu og yahayse ma ansixiyey? waxaa kaloo isweydiin u baahan maxaa heshiiskan looga qariyay xafiiska iibka iyo qandaraasyada?
marka adeegtid baaxadda saadka ee shirkaddan ay mas-uulka ka noqonayso wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ma haysataa ciidan ku filan oo galbin kara hawshan sidoo kale yaa bixinaya xuquuqda askariga Soomaaliga ah haddii uu ku dhinto fulinta hawsha shirkaddan waxaa kaloo isweydiin u baahan waa maxay sababta ay ciidamada Soomaalidu u galbinayaan saadka ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ajaanibta ah ugu dambeynna arrintani lugma ku leedahay dawladda Imaaraadka Carabtu dhammaan jawaabaha su'aalahan waxaa laga sugayaa madaxda dawladda Soomaaliya